wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada manfac TV qodobada wararka aan idin hayna caalamka waxaa imika ugu weyn dalka Australia oo lagu wado bisha September inuu aqoonsado dowladnimada Falastiin xilli ay sare u sii kaceen dowladaha ka hor imaanayo in Gaza ay la wareegto Israel iyo Jordan oo martigelinaysa kulan looga hadlayo dib u dhiska Suuriya. qodobada ay qodobo kale ayaad maqli doontaan waa maalinimo Isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 11 bisha 8 ee Agoosto sanada 2025 aynu ku bilownay Australia ayaa la filayaa in ay aqoonsato dowladda Falastiin bisha September marka la qabanayo shirweynaha guud ee qaramada midoobay iyadoo talaabooyinkan ay hore u qaadeen UK, Faransiiska iyo Canada sida uu sheegay ra'iisul wasaare Anthony Albanese waxa uu sheegay in dowladda Australia ay heshay dadaalada ka yimid maamulka Falastiin oo ay ka mid yihiin in hubka la dhigayo in la qabto doorashooyin guud in la sii aqoonsado xaqa Israel ay u leedahay jiritaankeeda. haddaba tan iyo sabtidii 5 qof ayaa u dhintay gaajo iyo macluul daran gudaha Gaza iyadoo tirada dhimashada guud ee sababtay dhimashadaasi ay gaadhay 217 qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka oo ay maamulaan Xamaas. wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay in guud ahaan in ka badan 61,000 oo qofood lagu dilay duulaanka militari ee Israel uu ku qaaday Falastiin tan iyo sanadii 2023. Israel waxay weerarkan bilowday si ay uga jawaabto weerarkii ay Xamaas hogaaminaysay 7 Oktoobar sanadkaasi hore kaasi oo lagu dilay ku dhawaad 1,200 oo qof lana soo afduubtay 250 kale. maamulka Falastiin oo maamulo qaybo badan oo kamid ah daanta galbeed ee Israel ay haysato ayaa horey u sheegay in aqoonsiga dowladnimada uu muujinayo taageerada sii kordhiysa ee xaqa dadkooda ay u leeyihiin ismaamulka. Albanese waxa uu sheegay in go'aankan la gaaray kadib markii xukuumaddiisu ay heshay ballanqaadyo ka yimid madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabbaas oo sheegay in Xamaas aysan door ku lahayn ama ku yeelan doonin dowladda mustaqbalka la dhisayo. go'aankan sidoo kale waxa uu yimid kadib wadahadallo uu leeyahay madaxda UK, Faransiiska, New Zealand iyo Japan toddobaadyadii la soo dhaafay. Israel oo cadaadis xoogan kala kulmaysa dowladaha shisheeye iyo inay joojiso dagaalka Gaza waxay sheegtay in aqoonsiga dowladda Falastiin uu abaalmarin u yahay argagixisada. Mareykanka waxa uu sheegay inuu raaci doonin tallaabadaasi isagoo rumaysan in aqoonsiga la aqoonsanayo dowladda Falastiin ay tahay abaalmarin Xamaas ay helayaan. dhamaadkii isbuucii madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance waxa uu ku celiyay carabka in Mareykanka uusan qorsheynaynin inuu aqoonsado dowladda Falastiin isagoo u sababeeyay inaysan jirin dowlad si buuxda u shaqeysa imika. shir jaraa'id oo uu qabtay Axaddii ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxa uu carabaabay in wadamada qorsheynaya inay aqoonsadaan dowladda Falastiin oo uu sheegay in ay yihiin wadamo cadow ku ah Israel ayaa si weyn loogu dhaleeceeyay maalmihii ugu dambeeyay wararka caalamka qorshaha ay ku doonayso in ay kula wareegto magaalada Gaza iyadoo ergada qaramada midoobay ay cambaareeyeen qorshahaasi uu Netanyahu ku sheegay inuu yahay xalka ugu wanaagsan ee lagu soo afjari karo dagaalkan ka socda Gaza. sanadkii hore Spain, Ireland iyo Norway ayaa si rasmi ah u aqoonsaday dowladda Falastiin iyagoo rajeynaya in tallaabadaasi horseedi doonto xabad joojin dhexmarta Xamaas iyo Israel. dowladda Falastiin waxaa hadda aqoonsan 147 ka mid ah 193 wadan ee xubnaha ka qaramada midoobay. qaramada midoobay qudheeda Falastiin waxay leedahay xubinnimo heer daawado joogto ah taasi oo ogolaanaysa in ay ka qayb gasho shirarka balse aanay xaq u lahayn codbixin. ugu dambeyn Urdun ayaa martigelin doonta kulan 3 goosood ah oo u dhaxeeya Urdun, Suuriya iyo Mareykanka salaasada soo socota si looga wada hadlo siyaabaha lagu taageeri karo dib u dhiska Suuriya sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda iyo muwaadiniinta dibadda ee Urdun. kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Dimashq ay raadinayso heshiisyo maalgashi oo caalami ah si loo soo nooleeyo dhaqaalaha dagaalka uu ragaadiyay. waxaa la filayaa in wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya Asad al-Shaybani iyo wakiilka Mareykanka u qaabilsan Suuriya Thomas Barak ay ka qayb galaan kulankaasi sida ay sheegtay wasaaraddu. dowladda cusub ee madaxweyne Ahmed al-Shara ee Suuriya ayaa wajahaysa dhibaatooyin ay ka mid yihiin rabshado salka ku haya isir qabiil oo u dhaxeeya maleeshiyaadka Bawdun iyo kuwa Druze loo yaqaan ee gobolka koonfureed ee Suwayda
iyo sidoo kale duqeymo Israel ay la beegsanayso askarta Suuriya iyo caasimadda Dimashq. Dhaqaalaha Suuriya ayaa weli burbursan kadib ku dhawaad 14 sano oo dagaal ah iyo xilka qaadistii madaxweynihii hore Bashar al-Assad bishii December. Urdun waxay ku dhawaaqday kulankan kadib markii Dimashq ay Arbacadii saxiixday 12 heshiis oo maalgashi oo gaaraya 14 bilyan oo ay ku jirto heshiis 4 bilyan oo dollar oo lala galay shirkadda UCC Holder ee Qatar si ay u dhisto garoon diyaaradeed oo cusub, iyo heshiis kale oo 2 bilyan oo dollar oo la saxiixday hay'adda maalgashiga qaranka Imaaraadka Carabta si ay u soo dhisto nidaam tareen oo dhulka hoostiisa mara oo laga hirgelinayo magaalada Dimashq. Mashaariicdan waxay ka hirgelin doonaan guud ahaan Syria, waxay noqon doonaan isbedel tayo wanaagsan oo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha, buu yiri madaxa hay'adda maalgashiga Suuriya xilli uu ka hadlayay munaasabad ka dhacday madaxtooyada Dimashq. Waxa uu heshiisyadan ku tilmaamay inay yihiin meel dhac muhiim ah oo u bilaabanaysa mustaqbalka Suuriya, sida ay sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ee Sanca. Labada mas'uul Al-Shara iyo Barak waxa ay goobjoog ka ahaayeen xafladii saxiixa heshiisyadan. Qaramada Midoobay waxa ay qiimeysay in qarashka dib u dhiska Suuriya dagaalka kadib uu imika dhaafaya 400 oo bilyan oo dollarka Mareykanka. Maamulka cusub ee Syria ayaa si firfircooni ah u baadigoobaya maalgashi dib loogu dhisayo kaabayaasha dalka tan iyo markii Mareykanka iyo Midowga Yurub ay qaadeen cunaqabatayntii saarneyd Suuriya kadib xilka qaadistii Bashar al-Assad. Horumaro waaweyn oo dhanka maalgashiga oo ka mid ah mashaariicda Damascus Towers oo dhismooyin dhaadheer ama daarad dhaadheer oo la degan yahay kana qiimeysan 2 bilyan, kuwa oo lala saxiixday shirkad fadhigeedu yahay Talyaaniga oo lagu magacaabo Obaco. Heshiis kale oo 500 oo milyan oo ku saabsan mashruuca Barmake Towers oo kale laga hirgelinayo Dimashq. Heshiis kale oo 60 milyan oo dollar ku kacayo oo ku saabsan dhismaha Barkame Mall. Bishii la soo dhaafay Sacuudi Carabiya waxay sheegtay in ay ku maalgelin doonto ku dhawaad 3 bilyan aan yiraahdo oo dollar mashaariic dhanka dhismaha iyo kaabayaasha oo laga fulinayo Suuriya. Bishii May Dimashq waxay saxiixday heshiis tamar ah oo 7 bilyan ku kacaya, kaasi oo lala galay urur ay iska kaashanayaan shirkado sida Qatar iyo Turkiga iyo Mareykanka si dib loogu soo celiyo awoodda qaybta korontada ee dalkaasi oo burbursan. Inta ayaan kusoo gabagabeynaya wixii warar oo dunida caalamka inooga yimid. Wixii kusoo kordho dib ayaan wararkayga dambe idinku soo gudbin doonaa. Fadlan subscribe inoo saara, la wadaaga asxaabtiina.